السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتي ميلاد joogtaan boo islaamiya meelaad joogtaan jimco wanaagsan baan idin leeyahay jimcahiisa kale ilaahay khayrkiisa barwaaqadiisa ayna soo gaarsiiyo nabadiisa iyo caafimaadka Allah subxaanahu ayna soo gaarsiiyo ilaahay idankiisa meelaad joogtaanba Soomaaliya way idin salaamaya caawo jimca ilaahay jimcaha khayrkiisa ayna soo aadi wixii sharax shaydaanku madax yahay Allah ayna ka xijaabo ilaahay idankiisa dhammaantiin Soomaali maxamed meelaad joogtaanba waa idin salaamaya salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin mii iyo magaalaba waxay ahayd maanta maalintii luuliye ahayd oo wadankeena looga dabaaldegayay maasha Allah tabaarakallah ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa qulubtooda iyo niyadooda iyo uurkooda iyo afkooduba israaca Allah ka dhigo uurkooda iyo afkooda is iskhilaafsaneen Allah ka dhigo ilaahay idankiisa wadankeena wax ka roon oo wadanka qofka wadankiisa wax u dhaamaa ma lahan ilaahay wadankeena ha ka dhigo midkii ilaahay subxaanahu wa tacaala hagaajiyo oo meel wanaagsan oo ilaahay subxaanahu raali ka yahay oo dadkayagu ku nabad galaan oo ehelkayagu ku nabad galo ciidayadu noo nabad gasho wadankayagu noo nabad galo Allah ka dhigo ilaahay u soo dejiyo ilaahayna ha nabad geliyo miyi iyo magaalo meelay joogaanba ilaahay ha nabad geliyo ilaahay idankiisa Soomaali meelu joogana waxa weeye maanta niyada waxa uga taagan wax kasta iyo baasaboor kasta oo hayso waxa uga taagan wadankiisa baa niyada uga taagan khayrkiisa in la soo sheego iyo nabadiisa iyo in la soo sheegan wuxuu ka jecel yahay malahan ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ha ahaadee ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaali meelay joogtaba qulubteeda inuu isku mid ka dhigo oo wanaag ay isku raacaan ilaahay baan ka baryaynaa oo nabadgelyo ay isu raacaan wixii dhib galay oo dhiig islaan galayna ilaahay ka cafiyaan leenahay ilaahay idankiisa wixii muslim oo dhibaataysan dhibta Allah ka saaraan leenahay ilaahay idankiisa Soomaali maanta maasha Allah tabaarakallah waxa weeye nin walba maanta qulubtooda waxa qulubtiisa ku jirta inuu wadankiisu hagaago ciidiisa inay hagaagto waan aragnay wadan la'aan ceebteeda waa soo aragnay waxay la tahay nin qof ay ka daymoontahay ma jiro maanta hadday waji leedahay yaa wadan la'aan iyo aanu isku dhiibno muxuu ahayd qaxootiyaal isugu dhiibno dhahna wadankayagu waa burbursan yahay maanta sharafteeda waa soo aragnay waxaan ka dhaxalnay waa soo aragnay waxaan ka dhaxalnay in caruurtii isdilaan oo wiilasha isbaabiyaan oo mid walba mid kan kale mid geliyo waxaan ka dhaxalnay waad aragteen caruurtii in layna ka qaato waxaan ka dhaxalnay hooyooyinkii iyo odayaashii inay kala tagaan oo wax masqaala daratin isku nacaan waxaan ka dhaxalnay inay hooyooyinkii ugu waaweynaa wadanka inay ka tahriibaan inay shaaracyada ku hayaan in awoogayaan qabsaday iyaydayda aan fuushay inay ku hayaan ilaahay ceebtayada iyo ceebta islaamka ha asturo wax aynan wadankeena laga maqli jirin oo dhan in la maqlay waa aragtaan ceeb aan waligay iyo Allah intaan cimrigaygu uu yahay ana soo maqalna waa maqlaynaayo hadda waad aragteen wax walba inay yeerayso inay adduunka midba mid ka daran tahay waad aragteen ilaahay ceebteen iyo ceebta islaamka ha asturo asaga raxmaane goorma la arki jiray waxaas waxa keenaya muqaadaraadka meesha laga cunayo caleentaan la soo buufiyay oo Soomaaliya kaliya lagu soo jiheeyay weeye waxa keenaya dhibaatadaas oo dhan odayaasha inay ilmihii cafi waayaan caruurtii inay baaba'aan reerihii inay dumaan wax walba waxa keenaya waa waxa kan xun oo xaraar oo dadkeena lagu soo dhaxdaayo sunta lagu soo duray dadkuba isma oga wada maskaxday ka jiran yihiin saqiir iyo kabiir mid weyn iyo mid yarba maskaxday ka jiran yihiin dadkiiba waa dad maqan qof maqan muxuu ogyahay meeshu marayaba ma oga waxaasna waxa inoo keenay waxa weeye waa dawlad la'aanta sababtoo inta wadanku hadduu kala dambaynayo dawlad iyo dad u naxaya uu leeyahay wadanku aslan qof u dhashay wadanka u naxaya heerkaasba dadku ma gaareen baaba'aas iyo hoogaas in caruurihii cararaan oo wadamada kale ay ceeb aan jirinin iyo mid midhaa jirta iyo ilaahay baa iga oganiga iyo mid aan jirin ba ay sheegaan ma kastii oo dhan waxaad maqlaysaan ay ku hadlayaan waxaas oo dhan waxaa keenay wadan la'aanta waxa keenay dawlad la'aanta waxa keenay odayaasheena iyo dhibaatada ay sameeyeen oo caruurihii iyo naagihii iyo ay qaxiyeen oo nin walba asagu ka soo noqday waxaan leeyahay Soomaali maanta ceeb uma qarsoona ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebtooda banaanka u dhiga
waad aragteen dumarkii waxay ku hadlayaan, waad aragteen wiilashii waxay samaynayaan, waad aragteen raggii waxay samaynayaan. waxaa weeye ceebta ilaahay subxaana wa tacaala ceeb ilaahay ceebteena ha asturo. waxa ka dhacaya waddankeeni iyo dadkeenii ciyaalihii banaanada tegay waxa ka dhacaya waxa sababay baa laydinka rabaa Soomaali weynay. sabab unbaa keentay waxaas waxa keenay baa laydinka rabaa Soomaaliye. ragga caqliga leh oo aqoonta leh oo diinta bartayow waddankii waad aragtaan midda maanta ka dhacaysa. intaad qabiil ku taagnaydeen, intaad qoloqolo ku taagnaydeen baa qurunkiini soo uray. intaad qoloqolo ku taagnaydeen iyo qabiil quruna ayaa qurunkiini ciyaaladiini iyo muxuu ahayd caruurihiin iyo waxa ku hadlayaan waad maqlaysaan. intaad adinku qabiil u sharaxnaydeen oo isu wada ruxayseen oo kuraasta ku dagaalayseen, allayliya ayaadkiisa qofka walba oo telefishka soo galaa wuu arkayaa inaad Soomaali tahay. maantana afkiina waa la barto, meel walba waa la bartay. waxaad ku hadlaysaana waa la ogaada. Soomaali waa wada muslim, Soomaali waa dad qaaliya. wax badan baa laydin yiri ceebtiina allayliya banaankaad soo saarteen. waxay la tahay inaan qofna waxba ka qarsoonayn. ilaahayse waxaa weeye ilaahay subxaana wax walba waa agdaraa. waxaa la yiri caano qubtay dabadood baa la qabtaa. Soomaali ay maantay qabiil iyo intaad waxaad ku jirtaan ka baxdaan. maanta dowladda labada lugood ha loo dhigo, labada lugood ha loo dhigo. wax walba doorashaa ka timaada, wax walba waa laga istafaahimaa, wax walba waa laga wada hadlaa, wax walba waa laga heshiiyaa adduunka. laakiin ceeb wallaahi bilaahi kugu dhacday waa marada waxa way baftacdo dhiig ku dhacay weey. inay weligeed kaa harayn muslim baan ahay oo dad muslim oo la yaqaanaan ahay. faankii Soomaali halkaasay nala gashay. anoo reer hebel oo la yaqaano. maxaa lagugu yaqaana? waxaa lagugu yaqaana wiilashaadina inay dirac iyo xirteen, gabdhahaagina inay ceebtii watergate ku hadlayaan baa lagugu yaqaanaa Soomaali Maxamed. maanta bal iska dhaqa ceebta. intaad iska dhaqdaan meel walba idiin taalla. Soomaali Maxamedey luuliyaad u dabaaldegaysaana ka run sheega. waxaan dhagaysanayay hees wiilal maryo cadcad wejiga ku xirtay ay ku xidhay Soomaali ay kaca ay ku hayaanin gubanay oo kalluun sidaasaa nagu dhacday. waxaa weeye waa run weeye dadku ma wada xuma. dad muslim oo ummadda Nabi Maxamed baa ku jirta oo dad wanaagsan baa ku jira oo dhiig islaameed ku jira. laakiin waxaa badatay intii xumaanta waday. ilaahay subxaana ceebtan iyo ceebta islaamkaba ha asturo. maanta waxaan u dabaaldegaynaa luuliyo. ilaahay ha ka dhiga luuliyo sanadkii ugu wanaagsanaa oo adduunku waddankeenu hagaago oo meel walba waxa weeye aanu wax la qaban. hal qof oo ordaya ama 2 nin oo ordaya ama 3 nin oo ordaya ama 10 nin oo ordaya ama 100 iyo 200 oo ordaysa yaa oo waddanka jecel, dadnimadiisa jecel. sida hadda muxuu hayto dhalinyarada tan waxa weeye waxa ka badan odayaasha wada gurrijaaga oo meesha fadhiyo dambiga u fadhiya. waxa ka badan inta durbaanka u garaacaysa, waxa ka badan inta balaayada abaabulaysa baa ka badan. marka waxaan leenahay ilaahu runta u hiili baan leenahay. ilaahu runta u hiili. cidna anigu wax ka sheegi maayo. qof walba xaqaa soo qaban. qof walba Allah subxaana wa tacaala baa soo qaban. sababtoo taa niman raalli alla ka ahayn ilaahay raalli uu sakaay wacada luusan meelna gaarin. waxaan leeyahay Soomaali ha isku tiirsanaato, ha israacdo oo dadkeeda iyo danteeda ha fiirsato. danteeda iyo dadkeeda ha fiirsato. adduunkii waa la hormaray. qalin iyo buug baa wax lagu kala gooyaa. adduunkii maanta waa hormaray oo qalin iyo buug baa wax lagu kala gooyaa. waxa weeye adoo degan oo muxuu hayto oo adduunyo roginin baad wax walba fadhigaaga ku helaysaa. xaqaaf daahira oo xaqaa shaqeeya. ilaahay subxaana xaqa haynoo adeejiyo, haynoo shaqeeya insha Allah. waddankeenu ha hagaago. wallaahi dad badan baan maanta dabad u bukin oo rabinin oo waddankiisa soo aadi lahaa, waddankiisa imaan lahaa. marka waxaan leeyahay Soomaali aqligeeda intaa ka weynaysiiso. Soomaali aqligeeda intaa ka weynaysiiso. waddankeeda inay xor ku tahay oo sharaf iyo maamuus ku leedahay ogaato. waad aragtaan dabaaldega dhacaya, waad aragtaan meel walba ka socota, waad aragtaan ciidamadeena meel walba dhalinyaradeenii taagan. wiil walba hooyaa dhashay, wiil walba hooyaa kusoo tiiriya tacab beeshay. qaar baa waxay ku leeyihiin ciidamada tan waxa way calooshoodu shaqaystayaal weeye. qaar baa ku dhahaya calooshaan isagaa raba inuu calooshiisa u shaqaysto, dadka gubo, dadka dhibo, dadka dhaco, dadka haleeyo. ciidamadaasi ka xun yahay. dadkaas raacay buu ka xun yahay. dowladdaas soconaysa oo meel walba faraha gelisay oo adduunkii wax la qaybsanaynay ka xun yihiin. sababtay tahay waa odayaashii
soomaaliya meel kastaba ha ka joogeena adduunka rogay weeye shalay kuwii muxuu ahayto ururada samaystay weeye kuwii soomaaliya dagaalka ku qaaday weeye kuwii abaabulay weeye waxaas nina oo meel walba fadhiya oo oday oo gurjaaya wallaahi waa kuwii shalay dadka gubay oo dadka dilay oo dadka dhacay oo dadka baabiyey oo barakiciyey marka inaan ka yeelno maanta madaxa u ruxno xaadir ka dhahno oo aan ka dhahno muxuu ahayto qabiil baa layna ku haystaa mustaxiil baan anigu leeyahay mustaxiil waxa waa laga soo gudbay waxa waa laga soo gudbay caruurtayada iyo wiilashayadu waa nimankii biri wadanka u talin lahaa caruurtayadu waa nimankii biri muxuu dalka u talin lahaa ma rabna marka hadeer wax guba oo muxuu yiraahdo orod isqarxi jannaad galaysaa bal nin qof maskiin oo masjid ka soo baxay ka soo gubaa oo xabad ku ridaayo dilaa ma jannu galaya janna xagee ka galaysaa diinta ku banayso qof maskiin oo muslim oo masjid ka soo baxay inaad gubtid bal soo cadeeyo waxa tiraahdo diintaas ka soo degtay oo quraankaas ka soo degay maba jiraba waa mid iyagu samaysteen oo ay samaysteen waa hada wadaadkii hadaan maqlayo laha waa dhilooyin iyo dhilay iyo xagee lagu arka wadaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala xataa wax walba sharaf diintu xaq in qofku diinta ka hadla xaq buu leeyahay laakiin wax walba waxay leedahay ceeb waxaadan lagu hadlay war qofka waa xumaaday war wax kale oo maldahan ba sheeg laakiin sidii ciyaalkii inuu hadlo yiraahdo gabadhan waa kan wiilkuna waa ka diintu xaq inay ka hadasho wax walba diintu ka hadasho laakiin wax walba waxay u baahan yihiin sharaf iyo inaad wax wanaagsan aad ku hadasho diinta maahan inay tiraahdo muxuu hayto waxyaalahaas oo kale ay ku hadasho looga hadlo diintu ka soo degtay midna kuma jirto qofku diinta xaq weeye inuu sheego wax walba diintu way ka hadasho laakiin hada wadaadkaas anigu si fiican buu ma dhageysano inaan ka hadlaba xaq iguma ahan ilaahay iga cafiyo wixii dambi oo aan galayo ilaahay iga cafiyo wadaadka ma baan dhageysan laakiin qoraalka waxaan arkay muxuu hayto wadaadku saa uu yiri ilaahay subxaana anaga iyo inta islaamaba dambiga dambi waaradkayaba muxuu ha cafiyo ilaahay idankiisa dambi waaradkayaba la cafiyo waxa weeye qof walba waxa weeye maalin buu leeyahay maracad buuna baaduunka ka raacaysa wax istira iyo wax islaayaba qof walba isaga qofka kale ku dambaabayo bari waxa iimaanaysa war qofkan maxaad ku dishay maxaad saadiga lagu dilay baa iimaanaysa maxaa la igu dilay war maxaan ku dilay baa iimaanaysa marka waxaan leenahay jamcahaas ilaahay hana cafiyo waxaan idin leeyahay cafi aliya masaab xabaad aniga iga tiin adinkuna soo cafiyo waxaan hadda waxa weeye qofka aadamiga markuu xanaaqa ama hadlo waxa weeye xoogaa waxba ka dhacay allah aniga ilaahay iga cafiyo adinkuna soo cafiyo Soomaali weyne insha Allah biidmillah ilaahay dambigeena iyo dambi waarkeen ba dhaaf dadka waxa weeye Soomaaliyeed waxa u roon oo inaga inoo roon qof walba waa garanayo maanta aqli leh oo dabka leexda waxa noo roon wadanka iyaga hagaago guryaha iyaga aan ku noqono wadanka iyaga ku noqono dadka iyaga ku noqono ehelka iyaga u tagna qurba iyo meel la taagan yahay oo cidlaa oo noqo ilmahaagii kala baqasid oo adan muxuu hayto sidaa rabtid adan xayaatadaada u cayshi karin waxa weeye wax lagu noolaada ma ahan qof walba wadankiisa u fiican sharci kasto oo la haysto iqaamada kasto oo la haysto hadii ilaahay ku idmahayo baasaboorro kasto oo la haysto waxa weeye meelaada u dhalan waxa weeye waa dareen ku joog weeye ilaahay marka dambigeena iyo dambi waaradkeen ba dhaafa ilaahay idankiisa hana laysa soo cafiyo dagaal iyo dood iyo xarbi iyo masaa'ibo waa dhamaatay maanta qof walba wadankiisii baa hudhan oo anfacahaya ilaahay dambigeena iyo dambi waaradkeen ba dhaafa hooyooyinka barafku dariiqyada ku dilay oo ku muxuu hayto ku dhibaatooday oo muxuu hayto sidaad aragteen ah oo ilmaha subaxda la jarmaaday oo ku dhibaatoon oo maanta haday suuqaas wax ka soo adeegato ilmaheedaas waxay ugaga tagotay ku kalsoonta aysan helaynin waxa weeye u dajiyo wadankii u dajiyo adinka mas'uulaha oo nimanku ha u dajiyo wadankii dhibaatada iyo ololaha iyo xarbiga iyo hebel seebu wadanka u qabtay iyo hebel seebay u yeeshay iyo hebel baakana ha la joojiyo ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo qof walba wixii alla u qoray risqana uu helayaa maalin wixii alla ku qoray wacda luusi kugu dhaafaynin ilaahay dambigeena iyo dambi waaradkeen ba dhaafaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh